togdheer cuqaasha iyo bahda saxaafadda waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. runtii maanta farxad weyn bay tahay inaan mas-uuliyaddii cisbitaalka guud ee magaalada Burco aan soo hayay muddo 3 sano 5 bilood iyo 23 habeen aan maanta halkan ku wareejiyo. runtii waxaan soo dhaweynayaa mas-uuliyiinta cusub ee maanta xilka nagala wareegaysa Dr. Maxamed iyo Raaxa Cabdiraxmaan oo runtii aan maanta ku wareejinayno mas-uuliyiinta cisbitaalka guud ee magaalada Burco. runtii waxaan ka warhaynaa mas-uuliyadda cisbitaalaadku way ka duwan tahay dhammaan mas-uuliyadaha kale. dadka mood iyo shaqo laga rawaxaa maaha shaqo laga rawaxo, waa shaqo 24 saacadood adoo iska hurdaa 5 habeenimo gaari dhacaya ama inaan la kubsaday lagugu yeedhaya baadhisteeda. waa shaqo aad iyo aad adag. marka iyagana waxaan leeyahay lagu duceeyo mas-uuliyadda adag ee maanta la wareegayaan. runtii maalintii aan cisbitaalka la wareegnay waxaan kula wareegnay duruufo adag. duruufahaasay ka mid yihiin mid dhaqaale, mid maamul, mid qalab iyo shaqaale niyad jabsan oo ay niyad jabisay gunno la'aan muddo dheer ay gunnadooda warwar maalin walba kaan jirtay. runtii markaan xilka la wareegnay waxaanu qaadnay inaannu horta bal qorshe samayno, bal maxaa keenay dhibaatooyinkan cisbitaalka guud ee magaalada Burco ka jira. runtii dhibaatooyinkii waxaa noo soo baxday in qalabkii cisbitaalka ee wax soo saari lahaa aanu ool, in shaqaaladii la qaban lahaa iyaduna ay beelahaysan tahay. waxaanu samaynay dhakhaatiirta cisbitaalka guud oo ka howlgal jirtay oo joogi jiray oo keliya shiftiga koobaad in 3 shiftiba cisbitaalka laga helo dhakhaatiir ka shaqaysa gaar ahaan qaybaha ugu muhiimsan, qaybta emergency-ga iyo qaybta umulisada, oo aan meesha ka baxdo dhakhtar la garaacayo loo yeedhayo oo isaguna habsaamaya ama gaadhi loo dirayo. runtii waxaanu iyadana qalabkii muhiimka ahaa naga dhinaa cisbitaalka gaar ahaan qaybta shaybaadhka aan ugu nimid qalab gaboobay oo haydii masafay kaga tagtay. waxaan tuurta ku qaadanay dhammaan qalabkii cisbitaalku u baahnaa inaan soo amaahno. taasina waxay keentay 80% shaybaadhada dadka loo diro iyadoo suuqa loo degi jiray inaan maanta shaybaadh suuq loo diro cisbitaalka guud uu yar yahay. dhammaan waxay keeneen isbedeladaas oo dhani in wax soo saarkii cisbitaalku kor u kaco oo aan gunnadii shaqaalaha horta markii koobaad aan ku adkaano. sidoo kale waxaanu la kaashanay duruufiyaadka cisbitaalka ka jiray bulshada reer Togdheer, hadday tahay ganacsato iyo hadday tahayba dadkii aan khibradda bidaynay ee maamuladii naga horreeyay. Malcabdi Yaasiin halkan ka hadlay baa ka joogay, iyagana inaanu si joogtaa ula tashanno sidii haddii aan la yidhaahdana duruufaan cisbitaalka uga saari lahayn. ilaahay wuxuu nagu guuleeyay in duruufahaas oo dhan meesha ka baxaan, in adeegga cisbitaalku kor u kaco, in wax soo saarkii ama dhaqaalihii cisbitaalka soo geli jiray ay 3% ay kordhaan. sidoo kale waxaan ku guuleysanay inaan dayactir ku sameeyno dhismayaasha cisbitaalka. waxa kale aan ku guuleysanay inaan nadaafadii cisbitaalka kor u qaadnay annagoo soo kordhinay cleaner fara badan oo iyaguna qayb ka qaadanaya. waxa kale oo iyagana markii shaqadii korodhay soo baxay shaqo abuur fara badan oo waxaanu shaqo abuurnay 80 qof in ka badan oo reer Burco isugu jira kaalkaalisooyin, dhakhaatiir, umulisooyin iyo nadiifiyaal. waxa ka mid ah dadka aanu shaqada u abuurnay ee nagu soo biiray maanta agaasimaha xilka iga wareegaya Dr. Maxamed waa dhakhaatiirtii ku soo biirtay cisbitaalka gudaha. runtii qalabkan cisbitaalka ku soo kordhinay haddaanu islaanaa midmid u tiriyo ka dhammaan mayno, laakiin waxa ugu muhiimsan qalabkay bulshadu noo keentay ay ka mid yihiin mashiinkan oksijiinta dhaliya, PCR-ka lagu baadho iyo ultrasound fara badan iyo CBC mashiinas fara badan. marka dhammaan waxay naga soo gaadheen bulshada iyo waxaan anagu soo iibsanay. waxa cisbitaalka ku soo kordhay muddadaan jooga dhismayaal fara badan. waxaan ka wareynay sida taariikhda lagu sheegay cisbitaalka waxa la dhisay 1948. ma jirin dhismo fara badan oo ku soo kordhay muddada cisbitaalka la dhisay oo ama cisbitaalku u dhisayba. dhismayaasha yaryar ku soo kordhayna waxay ahaayeen wax laga caawiyay ama hay'ad ka caadawisay. waxaan markiiba iyadana wasaaradda dhexe caafimaadka oo markaa wasiirka Dr. Xasan Ismaaciil u gudbinay in baahida koobaad ee cisbitaalka ay tahay xagga dhiska qolalkan loo yaqaan payment roomska
oo qofkii ladnaa marka waadhka dheer ee ingiriiska xilligiisii la dhisay la dhigaa ee suuligiisoo isticmaalayaan saddukaa qofkii waadhka yaallaa uu maalinta labaad ambalaasku weydiisanayo hargeysa u cararayo runtii taasina waxay keentay dadkii ladnaa in qol gooniya oo aanu kiro yar ka qaadaynay haddii aan la idhaahdo ay sidaa ku helaan waxaanu iyadana ku soo kordhinay qaybtan maternitiska 2 waadh iyo qolal iyaduna VIP-ya waxaanu iyadana soo kordhinay waadh lagu daweeyo carruurta yaryar bisha ka yar ee loo yaqaano neonatal waadhka waxaanu soo kordhinay iyaduna waadh kale oo ay ka mid yihiin waadhkan xumadda ee dumarka runtii waxaa kale aanu soo kordhinay dhismaha cusub ee shaybaadhka oo ay naga baxday lacag dhowr iyo $60,000 oo cid inaga cawisay aanu jirin ee ay tahay dakhliga isbitaalka ka soo baxay waxa kale oo isbitaalka muddada ku soo kordhay 3 istood oo iyaguna kuwa dawada la dhigaa waxa isbitaalka markii koowaad aan ku soo kordhinay qaybo cusub qaybaha waxa ka mid ah qaybta qalliinka lafaha xalay waa arkayseen gaadhi baa dhacay haddii dad jajabi beriga hore soo ay ku jiraan gawaadhida iyo shilalka dhammaan waxa loo diri jiray hargeysa ama isbitaalada bareefka ay qaban jireen laakiin maanta alxamdulillah waxa lagu shaqeeyaa isbitaalka guud ee magaalada Burco waxaan soo kordhinay markii koowaad qaybta neonatal unit-ka leedahay ama carruurta aadka oo xanuunsan bisha ka yar kuwaas oo markii hore dayac isbitaalka ugu dhiman jiray in qayb cusub iyo qalabkeedii aan soo kordhino waxaan soo kordhay muddadii aan joognay qaybtan kaliya lagu safeeyo dhammaan qaybta aasaasideeda iyo hadday noqoto waxa lahayd bulshada lahayd waxaana qaybta u weyn lahayd guddidii ay kamid ahaayeen Cali Dhamac Cabdi Yaasiin Maxamed Faarax Laangare iyo Yaxye Ibraahim ay kamid ahaayeen ayaa leh runtii qaybtaasi wali way shaqaynaysaa bulshadii reer Burco kaliya lagu safayn jiray dadkii gobolada barigaba wali way u shaqaynaysaa runtii waxa ku soo kordhay qaybtan PCR-ka lagu baaro xanuunka COVID-19-ka iyo warshada oxygen-ta dhalisa dhammaan kuwana waxaan ugu deeqay dahabshiil baan ugu deeqay ilaahay khayr ha siininka runtii gaadiidkan isbitaalka ugu nimi waxa ay 2 ambalaas soo gaboobay oo xilligii Maxamed Xaaji Ibraan cigal Allah u naxariistay dalka madaxweynaha ka la keenay iyo hal nooho iyo gaari langaruusara waxa ku soo kordhay muddadii aan joognay 2 gaari oo ambalaas ah labada mid kamid ah waxa keenay Cali Gadle Group midna dahabshiil baa keenay hal nooho aan anagu soo ibinay iyo gaari Nissan Pathfinder oo iyadana nagu deeqeen jaaliyada Birmingham intaas ku soo kordhay ugu dambeyn aan soo koobaya waxaan doonayaa in halkan uga mahadnaqo bulshadii reer Togdheer ee muddadii aan xilka haynay waxyaabaha faraha badan la ka soo sheekeeyay la garab taagnayd iyo bulshada kale iyagu niyadda noo dhisayso maalin walba haday isbedel ku arkaan magaalada Burco noo ducaynaya anagoo wadooyinka maranay kuwana waa mahadnaqaya waxaan iyagana u mahadnaqayaa shaqaale weynihii isbitaalka guud ee magaalada Burco oo runtii muddada aan soo wada shaqaynaynay si xilkaasnimo leh ila shaqaynay iyagana waxaan leeyahay aad baa u mahadsantihiin waxa kale oo u mahadnaqayaa mas'uuliyiintii wasaaradda caafimaadka haday noqoto heer gobol iyo heer qaran ee aan soo wada shaqaynay iyagana muddada waxaan doonayaa iyagana inuu mahadnaqo qurba joogtii reer Togdheer ee mar walba nala soo xiriirayay ee baahiyaha isbitaalka wixii ay ka qaban karayaan iyaguna doonayay inay nala qabtaan waxaan ka xusayaa jaaliyada magaalada Birmingham iyo hablaha bariga London ama East London Sisters loo yaqaano labadaas aan iyagana u mahadnaqayaa waxaan doonayaa inaan halkan uga mahadnaqo shirkadihii iyaguna muddada aan isbitaalka joognay waxtarka joogtada isbitaalka hadii la yiraahdo iyaguna nabarbar taagnaa waxa ugu horeysa shirkadda Dahabshiil Group iyo shirkadda Elias iyo Omar iyo Telesom iyo Cali Gadle Group oo dhammaantood ahaa kuwa isbitaalka muddada aan joognay wax muuqda bulshadooda ku soo caawiyay waxaan doonayaa in si gaar ah ugu mahadnaqo kambaniga weyn ee Dahabshiil oo runtii aan leeyahay reer Burco u duceeyaan waxa isbitaalka keenay muddada aan joognay halkan 180 ku baa laga lahaay waa ilaa $300,000 qalabku keenay ee COVID-ku kaliya $300,000 way gaadhaya iyo shirkadda Elias oo iyaduna si joogta qalabka nadaafadda bil kasta noo keenta oo si bilaash ah ugu keenta waxa kale oo mahadnaqayaa dawladda hoose ee magaalada Burco oo iyaduna runtii dhaqaale bilaa ku taageerta isbitaalka guud ee magaalada Burco waxa kale oo mahadnaqayaa gudoomiyahan iyo gudoomiyaashii hore aan soo wada shaqaynay oo runtii muddada aan soo wada shaqaynayna iyaguna si wacan noola shaqeeyay
waxaa kaloo iyaga ugu dambayn u mahadnaqayaa guddidii nagala shaqaynaysay xanuunkan covid-19 oo runtii iyaguna wakhtigoodii iyo dhaqaalahoodii iyo wax walba kaga qayb qaadanayay muddadaa uu xanuunkaasi jiray muddooyinkii u dambaysay sidaa iminka la sheegaya cisbitaalku waxaa ku soo kordhay colaysyo badan ay kow ka yihiin xanuunkan covid-19 marka waxaan u soo jeedinayaa cid kaste maamulka maanta jooga in la barbar istaago meeshan hawl culus baa taalla uma baahna in la qaqanjiiriyo iyo xintirfijaas uma baahna inaynu maxay ahayd la shaqeynaynu baahanay hadii la yiraahdo kii aan la shaqeynayno nadaha gardaamada kala maqnaati way xal xilliga shaqeynay weydinka yarkay ilaa 3 habeenimo kala gurayeen dhaawac iyo meyd marka waxaan ugu baaqayaa bahda caafimaadka iyo bulshada reer Burcaba inaanu si wacan ula shaqeyno ayaan ku soo koobayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh